halkan oo ah degmada Harwanaag oo maanta oo ah bishu tahay 25kii bishii koowaad 2022 shirkani wuxuu hordhac u yahay 27ka bisha koowaad 2022 shir lagu qaban doono degmada Buucame gobolka Sool waxaana samada dhaqanka Carabaabeen in ay laga wada hadli doono arrimo badan ay kamid tahay abaaraha iyo siyaasadda iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo ee deegaankiisa Axmegaag ee maalintii colaadu ka dhacday isimada iyo khiyaarta kale ee joogtay wariyaasha dhamaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa inaan galabta halkan kaga hadalno ama maanta shir isimadu ay ku qabsadeen isimada ACC ay ku qabsadeen magaalada Harwanaag maanta bishu tahay 25kii bishii koowaad oo laga wada hadlayay arrimaha danaha beesha iyo waxyaalaha kale ee soo kordhay sidaad ogtihiin halkan waxa ka dhacay ama aagan Buucame iyo u dhaxeeya iyo garowe waa tidhibi ka jirtay in dhibahaas wixii ka soo kordhay iyo meesha wax marayaan la iska weydiiyo meeshan lafteeda ayaa hadda ka hor nabad lagu saxaxay waxaad moodaa nabadaasi inay daashay oo waxaan leeyahay raagtay sorry oo markiiba la saxaxay nabadda iyo xabad joojinta in loo gudbo fayskii labaad guddigu u xilsaarnaa runtii way baahiyeen oo waxay fayskii labaad baa loo gudbay xoogaa dhaqan ahaan waxaanu dareemaynaa in raagid ku jirto kulli gacanta lagu hayaa waxaanu isleenahay hawsha in la istaba raaciyo iyo qodobo kale oo soo raaca oo ama xagga siyaasadda ha ahaato ama xagga maaragtay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale oo wadanka haysta ha ahaato in wax la iska weydiiyo la isla soo qaaday dabadeedna waxaanu isla garanay shirka inuusan ku qabsoomi kareen halka kan oo uu u baahan yahay waqti sida daraadeed waxaanu go'aaminay inaanu maalinta 27ka bisha oo ah saad dambe hadii Ilaahay idmo inuu shirku ka furmo shirweynahaasi ka furmo oo dhaqanka uu ka furmo meesha la yiraahdo Buucame iyadoo ajadaha aan ka soo hadlay oo nabadgelyada abaaraha iyo siyaasadda laga hadli doono hadii Ilaahay idmo wixii ka soo baxana saxaafadda waan la wadaagi doonaa hadii Ilaahay idmo inahaas baan ku soo koobaya oo shirkan ku saabsanaa maanta halka ka dhacay Harwanaag salaam alaykum halkan maanta waxa isugu yimi isimada dhaqanka SSC shirkaas oo halkan maanta ka socday sidaad aragtaan isimadaas ka soo qayb galay shirkuna waa shir isimood weeye waxa laga wada hadlay la iskana xog wareystay waxyaabaha khuseeya deegaamada iyo dadka aanu madaxda u nahay oo ay kow ka tahay amniga oo ay kow ka tahay arrimaha siyaasadda oo ay laba ka tahay in abaar jiraan deegaamadaas waxaanu ugu baaqaynaa marka ugu horeysa cid allaale cid ay khusayso in deegaamada abaara ka jiraan biyo la'aan baa jirta xoolihii baa waxay cunaan la waxaanu ugu baaqaynaa cid allaale ciddii deegaamada danaynaysa hadday caalam tahay iyo hadday hay-ada tahay iyo hadday dadka deegaamada u dhashay ee gargaar bixin kara ay tahayba in dadka la ogaado abaarahaasi waa bilow gugiina haddaan Ilaahay raxmaad keenin dhowr bilood baa ka harsan marka hore Ilaahay baynu ka baryaynaa inuu soo furto kulligeenba marka labaadna in dadka aan waxba haysan iyo dadka reer guuraaga la caawiyo ayaa kamid ah waxyaabaha aanu isla soo qaadnay shirku sida la sheegay oo garaadku sheegay wuxuu si rasmi ah uga furmaya bisha 27keeda magaalada Buucame waa shir isimood waxyaabahaas laga lafa guri doonaa waxyaabahaas aad la isaga wareysan doonaa insha Allah go'aamana waa ka soo bixi doonaan aanu la wadaagi doono ciddii ay khusayso oo dhanba inta ka horeysana waxaanu u diyaar garoobaynaa shirkaasi soo ku qabsoomi lahaa haddii alla yidhaahdo waxaanu ku baaqaynaa in nabadda la ilaaliyo dhacdooyin baa dhacdhacaya dhowaan waxaa lagu heshiiyey Axmegaag iyo Sangajabiye colaadii ka dhacday inay dawladdu gacanta ku hayso amniga sugayso wadooyinka waxyaabaha ka dhacaya dad baa la dhaawacay
maalmahanba iyo maantaba waxaanu rajaynaynaa in waxgaradka deegaamadaas ay la hadlaan dadka wax magaradka ah ee doonaya nabadda inay jabiyaan. ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inaynu ilaahay nabadda inoo taabageliyo. aad iyo aad baan idin salaamaya. wabillahi tawfiiq. wasalaamu calaykum. maxamed axmed jaamac maxamed bidhaanshe wararka warbaahinta bidhaan media. Hadh wanaag.